حسن سليمان ما دام يبلع بنتهاي ماله لقى بلابي هلجنكي أما أيكون سلطان تهاي ماله دلك لقى حرية وحنا قاليا إن أنا مناسبة سيدي يتوم كبي أو مالين قرن ودلك وردن لقى حسيو إن أنا سوين وموجينه runtii waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro golihiisa wasiirada madaxda heer qobol iyo heer qaran ee guud 18 May waxaan kaloo halkan aan ka salaamayaa ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan ciidamada ku sugan jiida hore ee difaacaya dalka runtii haddii aan ku soo noqdo munaasabadda 18 May waxweeyaan calanka maanta aynu ku laalonayno ee aynu hoos taaganahay waxa uu ku yimid xinjir iskamu imanin dhuux baa loo soo shubay horta waa maalin weyn maalintan aynu xusaynaa waa maalintii aynu go'aansanay inaynu ka go'no koonfur oo waxyaalo badan oo mushkiladii ayna soo mareen وهالجنكيني يدكيني أي كودنتين شاهدين بدني وتوالكنتين كحوت عينو نقرني مشكلة داس كوكي عينو كسو بدوني إلى هاي دكيني كعنتين نوسو بليي عينو كعنتني ورأكو بيسك عشان كي أنت لا فريستي إن مستير كذاك لا قتليو تدوينها يشعبك أياكو أكثر سوتشيدي أنا وأنت عطانا ناهي مقع أسلم ناشنال موفنت تبعي ومالي ناشنال موفنت إن نوضك كالوغينو وما ننسبل لكن تم السير تدقينوه اللي ماتين أي أنا ما كونفور مرة وراينو أينو كنو قرناي أينو مرتو كنو قرناي ونوحيني أينو اسكاكيني ما دام أينو ساعتهاي ما أنت مرتم بي هاد هنا لقى قليني هذا أنا لقى قليني مايه هذا نوصل شرطة gudoomiyaha waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Tuur gudoomiyaha maanta lagu dhawaaqay isagoo madaxweynaha ku soo baxay maalinta anigu waxa joogay meesha la yiraahdo Berbera waxaan ku haynay isha shirka Burca waxa ka soo bixi doona kadib qolkii lagu dhawaaqay anagu caalamna ma aanan haysan wax kale oo lagu dubaan degada ma aanan haysan qoylayo waxaan u saaray baabuur nin walba qorigu haystay muddo Soomaaliland mas'uuliyadda kama saarna من نوع الصومالي مسؤول المصر. عندي صدق ليك خلايا تشدين. سبب ما أنت ليك حبر شوجا أنا مالين وحقولي من نوع الصوماليات كشدين. إن ما أنت الله ينوم عابو سوماليتين كاتين آديات بين السيدات هاي وحالك كميت هاي على ود القرآن الله ينوم هايو ومالين تري كل فترة مالين تري وحاي ضد ضربة مير كودي أي ماشي كسرت ضد ضرب أي كل مرة لفظون كشيء سؤال كل سؤال كل سؤال شكيستي تبكي كتب على سبتي ومالنت اللي سوى السامحي ومالنت حليم الليل لقى نقضي وحي إن الصالح مري ومالنت اللي أسعانه دي أول يبيش الحبايب ولا لكل نقطي هو هالشيء صحيحين إلى كم من نقطان جمهورية الصومالية كنتي مالن خاص مالن بيش الحلية هاي ماها مالن الصومالي اللي ولا الهوي أنا هيو أنا أسكول كشنات نكتا أيان هرجيسة كسوق حيو مقالة بالودام قوي مركا وحن قرنا يا دبعتدي يا حنونكي ما أنت وحي مسكو صوب حنين نود بعد نقدلو سدادية تمن كمي ومالين قلبي جينا يقولوتنا تعاون إيسا ومالين كمنان نكويني ومالين كمنان kale ay maxay ahayd tolay daanaafo u yihiin waa maalin hooyooyin badan ay Soomaaliland hangalka wada qaateen waa maalin hooyo waliba gurigeeda hoos uga ooyday tii ayaynu maanta kaga baxnay waxa aan leeyahay allaha casaawajallaha ah ee maalintii dhibaatadaas iyo xasuuqi iyo tacadiyadii ka dhanka ahaa inaga saaray ilaahaas horta mahad aynu wada celino تكلم وحان لا يهاي أن هل كان همبليا إيا سلام وقدريا مدحوينها قرن كجمهورية Somaliland عبد الرحمن عبد الله عرو إيا تمام وياشي سعادة maalin qaali ah oo qarannimada ku suntan
la isaga sheekayn maayo waxay ku qotontaa dhiiggii wiilasheena way naga mudan tahay inaynu mar kasta maskaxda ku hayno oo aynu u samayno xafladaha noocan oo kale waa la dhameeyey hadalkii badankiisii waxaan anugu odhan lahaayoo la iga qoobayo maxay cabdiraxmaanku ku tiiqtiiqsaday oo uu la faguray midnimada ayaa muhiima midnimada degmada meel aad joogtaanba waa muhiim salaan ka bacdi maanta madashan iskugu imanay maalmihii hore isku midnay way ka duwan tahay waa munaasabadii 18 May waxaan hambaliyay bogaadu diriyaa bulshooyinka ku nool degmada Balcabane waxaan hambaliyay bogaadu diriyaa bulshooyinka ku nool gobolka Hawd waxaan hambaliyay diriyaa bulshooyinka ku nool Soomaaliland waan leeyahay hambaliyo munaasabada 18 May inta ka bacdi hadalkii soo dhameeyay taariikhdii sanam iyo maalintan waxa tahay waa in badan baa laga soo sheekeeyay waxaan doonayaa hambaliyo u diro dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan degmada Balcabane waxa ka mid tahay degmooyinkii halganka Soomaaliland oo in badan ka soo dagaalameen mujaahidiinta sanam waana xuduntii dalka laga soo xoreeyay سلاش دقيقة واحد كعصرية بشوية دقيقة طلع عبنا يا وجهي ستان لنعور مركها يا قعمات خمستان واحد كسر سلام مدحونا جمهورية سوماليلاند مدحونا كوينكا oo qalbiga ku haya degmada Balcabane oo ay kamid tahay meel looga cadeeyay sidaad sheegteen Balcabane waa meelihii halganka laga bilaabay markii hore waxa deganaa jiray ciidanka ugu xoog weyn ee xuduudda degan nin lugu yar loo jiray halka deganaa jiray dadka dhibi jiray markii dambana waxay ahayd meel lagu tababaro dhalinyartii isag marka dhalinyartii deegaanku badankoodu shidbadii iyo tababarkii halkan lagu bixin jiray waa qaaday saasay dagaalada ku galeen waxa tusaale ku filan dagaalkii buuraha ee galbeedka dhowr iyo 10 nin oo deegaanka ka soo jeeda ayaa ku wada dhintay oo adeerkay rumi uu ka mid yahay marka waxa weeye magaalaha halgankii uu laga soo dhamaaday imika waxay u soconaa horumar iyo dalka inaynu horumarino marka waxaan kula dardaarmayaa inaynu iskaashano wada shaqeyno anigu intan muddada yar ee dowladdan Cabdiraxmaan jirtay baahiyaha deegaanka anigoo idin iman waan gaarsiiyay wixii jiray annagu waxaan laga saaran yahay inaanu isku xidhno baahiyaha deegaanka ka jira iyo dowladda marka taasi waxay noo sahlaysaa inaynu dadka deegaankeena horumarsano wax ka qabsano bulshadeena ku noqono dadka deegaanka ka soo jeeda waxa jira degmooyin meel kale degan yihiin meelaha kale laftigeeda waxba ka qabanna imika aanu meesha Galbees la yiraahdo dhaamkii ugu horeeyay baan ka bilownay oo dhaam weyna xanaanadii xoolaha waan ka dhisnaa marka kaas waxa mashruucan hore uga shaqeyn jiray intaana dowladda ku soo biirin marka halkanna wax kasta oo ay u baahan tahay wada kala shaqeynaa haweenkana gaar ahaan la shaqeynaa dhalinyarta odayaashana gaar